بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha ahlu khayrka ah, barakada badan, karaamada badan, sharafta badan oo jecel mar kasta ilaahay subxaanahu wa tacaala xiriir khaas ah inay la sameeyaan. xiriirkaas khaaska ah waa xiriirka awliyada ilaahay subxaanahu wa tacaala. ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkiisa gaarka ah uu doortay. xiriirkaas khaaska ah waxaad saaxiib kula noqonaysaa malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala. galabta anaga galabay noo tahay, inkastoo weli casirka aan la gaarin oo saacadda 4 galabnimo ay tahay reer Minnesota. waxaan rabaa walaalaha inaan u sheego hadiyad ka mid ah hadiyadii rasuulka calayhi wasalaam al-israa waalmicraaj uu kala yimid. waana wardi aabbihiisii ama awowhiisii uu baray nebiga calayhi wasalaam. wardigaasi nebi ibraahim ayaa nebigu wuxuu kula kulmay samadii 7aad. wuxuu baray hadiyad oo rasuulka calayhi salaam ugu talagalay inuu la soo laabto. hadiyaddaasi waa sheegi doona hadduu ilaahay yidhaahdo, laakiin al-israa waalmicraaj qisadeedii oo kooban aan idiin akhriyo. waana qaybta koowaad. qaybtaanna hal hadiyad aan soo qaadanaynaa oo ah dikri, oo maalintii haddaad ku celceliso ilaa intii awooddaada ah. culammada qaar waxay dhahaan 1,000 jeer, 100 jeer ugu yaraan, ilaa 1,000 jeer haddaad kali karto maalin kasta iyo haddaad ka siyaadin karto. waxyaalaha aad helayso waxaa waaye adduunna ilaahay albaabadu kuu furayaa ducadaasi, wardigaasi. aakhirana waxaad galaysaa janno sidii nebi ibraahim calayhi assalaam uu ugu sheegay wiilkiisii awha u ahaa nebigeennii calayhi salaatu wasalaam, nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. sanadka culammada isku khilaafeen sanadkuu ahaa oo hijriga ahaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam, laakiin waxaan rabaa inaan sheego nebiga calayhi salaatu wasalaam markii xaaskiisii uu jeclaa ee khayrka badneed ee maalqabeen ahayd oo wax alle wixii maal ilaahay siiyey ay ku bixisay, odageygii oo ahaa nebiga ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulka ilaahay uu doortay, uuna ka doortay caalamka oo dhan, oo ilaahay uu ka dhigay afdalu khalqi illaah, khalqi ilaahay abuuri midka ugu fadli badan waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. nebigaasi ayay u dhaxday wax alle wixii maal ay lahayd iyo business waxay ku bixisay diinta islaamka inay garab ugu noqoto. garabkaasi weynaa waa dhimatay, ilaahay u naxariisto. markay dhimatay khadiija, rasuulku wuxuu dhahay garabkii midig way go'ay, macnaha garab midigay ugu ahayd calayhi salaatu wasalaam. isla sanadkaasi waxaa dhintay adeerkiisii oo aan muslim ahayn laakiin difaac hore ku jiray oo la ixtiraami jiray. quraysh ay ka dambeeyeen, oo quraysh odayaashooda oo xukuma maka uu ka mid ahaa. lama taaban karo wiilkeyga u dhahayay, isagana ugu dhintay, wuxuuna ku dhintay gaalnimo iyo shirki, laakiin difaac hore kugu jiray. sanadkaasi reer makana rasuulka waa diideen, kuma dhegaysanayno, diinta aa wadato ma qaadanayno, kuma rabno, naga tag, cid kala raadso. gaaladii quraysh oo mushrikiinta oo saas dhahayo aan nebiga calay salaam labadii tiir oo garbaha u ahaa ay wada dhinteen. sanadkaas waxaa loo bixiyey caamul xusn, sanadkii murugada. rasuulka marka wuxuu doontay magaalo, wuxuu aaday oo daris la ah daa'if la yidhaahdo. magaaladaasi ayaa wuxuu ka doontay dad dhegaysanaya inuu ka helo, soo raaca, garab u noqda
oo maka la soo noqda. markaas nabiga calayhi salaatu wasalaam si sir u baxay ayay culimmadii yidhaahdeen, waxaa la socda oo keliya zayd. nabiga calayhi salaatu wasalaam markii magaaladii u tagay taa'if, dadkii reer taa'if ahaa wuxuu u sheegay dacwadii iyo diintii u waday oo ah hal ilaah keliya in la caabudo, isagana lagu daysado noloshiisa. way la dagaalameen ilmihii sufahada aan wax kala garanayni iyo cid kasta ay kula dagaalami karaanay u soo direen. nebiga dhagaxay kala daaleen ilaa beer uu ku soo cararay oo beeraha taa'if ka mid ah, isagoo dhiig ka daadanaya calayhi salaatu wasalaam. xabiibullah, ilaahay xabiibkiisii halkaasuu gacanta ku taagay, isagoo dhahayo haddaan ducada af soomaaliyeey, ilaahow dacwadan iyo hooshaan aan wado iyo daalkan aan daalanahay iyo dhiigbaxan aan dhiigbaxayo, ilaahu waxaad rabtay haddaan samayn waayo oo aan ka gaabiyey xeeladdeeda oo yaraatay darteeda iyo dacf iyo awooddeeda oo yaraatay, ilaahu iska kaa cafi. dhiigga ka daadanayo ma fiirinayo, dhibka uu soo maray ma fiirinayo, safarka uu soo galay ma fiirinayo, maka in laga diiday ma fiirinayo. wuxuu raadinaya oo keliya ilaahay keliya inuu raali ka yahay. ilaahu raali mayla tahay, waa wadi doonaa hoosha. intaan ku soo dhacay beeruu ku soo dhacay isagoon dhaqaaqi karin. waa meeshii wiilkii oo nasaariga ahaa oo masiixiga ahaa canabkuu u keenay oo meesha uu ku nastay, canabka uu cunay. wiilkaasaa khayr wala ka noqday reer taa'if oo dhan. malaa'igtiyaa u timid markii ducada kor u taagay. qofka ducaysta malaa'igaa u timaado. waxay dhaheen anaga waxaan nahay malaa'igta buuraha qaabilsan. taa'ifan waxay ku taalay laba buur dhexdooda. na amar, ilaahana soo diray, haddaad na amarta labada buur inaan kor u qaadno waxa magaalada joogoo dhan ayaan ku baabi'in karnaa. wuxuu yidhi maya. wuu naxariis badnaa rasuulka slam, wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. naxariis socotuu ahaa oo bini aadam. ilaahu naxariis socota naga dhig, ilaahu naxariis socota naga dhig, ilaahu naxariis socota naga dhig. markaasi waxaa dhacday in uu diiday malaa'igta udha iska laabta, waxaan ilaahay ka baryayaa dhabarkooda kuwa khayr badan ilahay inuu ka soo saaro. taa'if markii dambena waxay ka mid noqotay deegaanada islaamka. rasuulku uu soo laabtay, markuu ku soo laabtay waa laga diiday inuu soo galo. nin oo mushrik ahaa oo ka mid ahaa zucamada ama odayaasha maka, ninkaasi ayaa rasuulka alay salaam magantiisu ku soo galay ilaahay ka sakow. markuu soo galay rasuulka alay salaam muddo yar kadib salaada maaragtay cishaha 5 waqti weli lama waajibin. markaasi subax iyo habeen uu dukan jiray oo 2 salaadood ah. markaasi nabiga alay salaam habeenkii ayaa isagoo gurigiisa jiifa, ama waxaa kaloo la yidhahdaa guri umahani ayuu jiifay calayhi salaatu wasalaam, ayaa gurigii dushiisa la kala furay. mucjizaa dhacday. waxaan electrogna oo dhan maanta waxay samaynaya waxaa ka weyn awoodda ilaahay. gurigaa kala furmay dushiisa, saqafka, iyadoon waxba la burburin. malaa'igaa soo degtay, jibriil uu la socdo. nabi maxamed oo hurdaayay qaateen, waxay geeyeen xaramka. xaramka markii la geeyey, xaramka kacbada dhinaceeday dhigaan. markaasi ayaa jibriil wuxuu yidhi qaliinaan ku samaynaynaa. waa qaliinkii ugu horeeyey oo taariikh ahaan oo qof wadnaha la furo. waxay dhahaan open heart surgery. maanta waxay dhahaan qaliinka maaragtay wadnaha furan. caloosha la furaya, wadniha laga shaqaynaya. dadka xanuunada wadnaha qaba ilaahay caafimaad buuxaa siiyo. gabarara maanta la ii keenay, amiin, iyadana u duceeya ilaahay caafimaad degdega ilaahay inuu siiyo oo mar dambe qaliin ay ku laaban. dhowr yar, waa gabar yar waay, dhowr jeer aa la qalay, wadnaha laga qalay. dhakhtarku wuxuu leeyahay 3 qaliinaa u hartay, waana yartahay. marka businessay ka samaynayan. waxaan dhahay tahliilna waa u geynay, ilaah u aqbalo oo qur'aankaan ku dhammaynay, waana u ducaynay, ilaahay ducada naga aqbalo. idinkana u duceeya ilaahay dartiisa. gabadhaas maamadaasi
oo maskiinta ah oo gabadheeda ka xanuunsan inuu ilaahay dhakhtar ku celin markaa. cafan ugu dambayntii nabiga calayh salaam waa la qaaday, waxaa la geeyey kacbada agteeda isagoo hurda, calooshiisaa la jeexay. jibriil wuxuu ka soo saaray wadnihii nabiga calayh salaatu wasalaam, weel oo biyo zamzam ay ku jiraan oo dahab ah. biyaha zamzamka ayaa wadnihii lagu nadiifiyey. markaasaa waxaa lagu celiyey rasuulka calayh salaam. markaasuu jibriil uu daboolay, waxaa la yidhaahdaa operation, oo waxaana markii rasuulka la dilaacinaya halkan laga soo dilaaciyey. jibriil intuu ka soo dilaaciyey dhuunta ilaa caloosha uu dilaaciyey. markaasuu kala feeday, wadnihii uu la baxay, biyo zamzamaa lagu soo dhaqay, wadnihii oo nadiifa meesha lagu soo celiyey. hadday wax jiraan xitaa wax kugu haray ma lahan oo bini aadan cuqdadiisa ku saabsan. rasuulka calay salaam nadiif u ahaa qalbigiisa. ilaahu subxaana wa tacaala noo ekaysiin nabiga calayh salaatu wasalaam. waxaa dhacday marka nabiga calayh salaam, qisada halkanaan ku joojinayaa. kacbadii markii oo kacbadii agteedii qaliinkii lagu dhameeyey oo la daboolay, markaasaa rasuulka calayh salaam la soo kiciyey. jibriilaa soo kici xulaani jibriilaan ahay, malaa'igtana way la socdaan, safaraad galaysaa, waxaan aadaynaa safar dheer. marka muddo saacad gudaheeda dheheen culummada ayaa taariikh rasuulku ku sameeyey adduunka ilaa hadda weli aysan ka dhicin. meel oo 2 bilood loo socdo waxaa rasuulka lagu geeyey ilbiriqsi. waxaa meeshaas taagneed alburaaq, waa xayawaan baqasha iyo dameerka u dhaxaysa. xayawaan qurux badan, midabku uu cad yahay oo meesha taagan. rasuulka alay slam jibriil wuxuu amray inuu xayawaankaasi uu raaco. markii rasuulka dhabarka calayhi salaatu wasalaam uu rabay inuu uu raaco ayaa way baraanbarootay. markaasaa jibriil wuxuu yidhi baraanbaroot macnaa xoogaa way diday. jibriila wuxuu yidhi buraaqoy, nebi maxamed oo ambiyada ilaah uga fadli badan uguna khayr badan ayaa raba inuu ku raacee isdeji. marka way degtay. markaas halkaas waxaa laga fahmaya dhana culummada in ambiyada ay raaci jireen. buraaqdaasi marka xayawaankaasi halkii talaabo waxay dhigaysaa meesha isha ay qabato. meel bannaan markaad joogto, ishaada meesha ugu dambaysa ay qabato ay halkay taakay dhigaysaa. marka sakano ilbiriqsiyo ayaa waxay ku tagtay masjid al aqsa. masjid aqsa markaasi ma wada dhisneen, xeendaab wuxuu ahaa oo masjid ah waagaas jiray. masjid aqsa marka rasuulka calay salaam buraaqadii ayaa lagu xiray albaabkeedii. jibriil ayaa soo geliyey, waxaana ku sugayey ambiyada ilaahay subxaana wa tacaala oo dhan si u wada dhan yihiin. nabigaa la hormariyey, halkaas wuxuu ku tujiyey 2 ragco. 2 ragco markuu ku tujiyey nabiga calayh salaatu wasalaam, ambiyadina ay u duceeyeen rasuulka, ayaa jibriil markaasi 2 hadiyado u keenay. intaanan kor aadin, safarkii dhulku waa dhammaaday, 2dan hadiyad mid dooro. koob ku jira caano iyo koob ku jira khamri. markaasi wuxuu doortay nabiga calayh salaam koobka caanaha. jibriil wuxuu yidhi calayhi salaam, fitradaa dooratay, asalka waxa bini aadanka dani caafimaadkiisii iyo nafaqadiisa ku jiro. wuxuu dhahay haddaad khamro dooran lahayd, ummaddaada waxay noqon lahayn ummad wada wareersan oo wada khamraysan oo wada cabsan. marka waxaa dhacday, wuxuu doortay nabiga calayh salaatu wasalaam caanihii, ummaddiisuna uu doortay. nabiga wuxuu dhahay jibriil wuxuu dhahay calayhi salaam, waa baxaynaa 7 samaad aan aadaynaa marka kor. 7 samaad marka samaawaad kasta wuxuu kula kulmayay nebi. samada koowaad intuusan gaarin, samada waa xiran tahay marka qolfoofay leedahay, ma ahan hawo iyo waxaas. iyo wuu garaacay, albaabaa la garaacaa. marka malaa'igtu waxay dhaheen yaa waxa soo garaacay waa jibriil.
yaa kula socda nebi maxamed aa ula socda calayh isalaatu wasalaam ma la soo idmay haa waa la soo idmay way fureen samadii koowaad wuxuu kula kulmay abuuna aadam calayhi salaam nebi aadan ayuu kula kulmay waa samadii koowaad nebi aadan markuu kula kulmay calayhi salaam samadii koowaad wuu salaamay abuuna aadam aabihiisii markuu salaamay kadib wuu u duceeyey nebiga markaasi markuu u duceeyey kadib jibriil wuxuu yidhi samada labaadaan tegana waa soo kookoobaya wardigaan u soconnaa meeshan waan ku soo qoraya hadduu ilaah yidhaahdo dadka qaarkooda soo codsada in la soo qoro samadii labaad uu tegay yaa joogo yaxya iyo ciisa calayhim assalaam nebi maxamed ay soo dhoweeyeen way salaameen way u duceeyeen haddana samadii saddexaad uu aaday yaa joogay nebi yuusuf calayhi salaam nebi yuusuf markuu arkay wuxuu yidhi shatru aljamaal ayaa la siiyey qurux bini aadan nuskeeda marka culummada waxay dhahaan waxaa loola jeedaa oo loogu fasiray nebi aadanaa ugu qurux badnaa wuxuu ilaahay abuuray nebi aadan wax ka qurux badan ma jirin anagoo dhan asagaan ka dhalanin quruxdii nebi aadan nuskeedaa la siiyey saasaa loogu fasiray nebi aadan oo ugu qurux badnaa dadka nuskeedii ayaa la siiyey nebi yuusuf nebi yuusuf u duceeyey nebi maxamed alayh salaam wuxuu aaday markaasi samadii afaraad yaa jooga nebi idriis markuu la kulmay nebi idriis marka qisadiis haddaan idinkaga sheekeeyo waa nebiga keliya oo ku dhintay samada afaraad sababto ilaahay subxaana wa tacala uu weydiistay ilaah wuxuu dhahay dhulka igu dilin samada igu dilin marka koraa loo qaaday samada afraad halkaasi ayuu ku dhintay mucjisooyinka nebi idriis ay ka mid tahay nebi idriis nebi maxamed u duceeyey calayh salatu wasalaam samadii afraad uu ka tegey samadii shanaad uu aaday samadii shanaad yaa jooga haaruun calayhi salaam nebi haaruun ayuu la kulmay nebi haaruun nebi maxamed u duceeyey calayh salatu wasalaam markaas nebi maxamed waa baxay wuxuu aaday samadii lixaad samadii lixaad yaa jooga nebi muuse calayh salatu wasalaam wuu la kulmay markaas wuu ooyey nebi muuse jibriil wel maxaa u ooynaysaa wuxuu yidhi waxaan ka masiirsanahay nebi maxamed ula jeedaa oo ummaddeeday ka badan tahay inta raacdina inta anay raacday ka badan tahay markaas kadib wuu u duceeyey wuu baxay samadii toddobaad ayuu aaday samada toddobaad marka waa samada ugu saraysa waxaa jooga abuunaa ibraahim calayhi salaam markuu tegey geed ayuu saas dhabarka ugu hayay markuu arkay nebi maxamed nebi ambiyadoo dhan wuxuu arkay nolol ku arkay calayhi salaam markuu arkay nebi ibraahim wuu yaabay wuxuu dhahay ii ekaan badan ah nebi ibraahim waana awogiisa waay nebigu wuxuu ka soo farcamay ismaaciilna ibraahimaa dhalay markaasuu soo dhoweeyey markuu soo dhoweeyey wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan kuu sheego sidratulmuntaha waa geedka gadaashiisa ah waa meesha ugu dambaysa waayo oo nebiga calay salaam ka sare mari doono nebiga calay salaam riwaayada qaarku waxay sheegayaan jibriil meeshuu ku haray wuxuu dhahay qof walba makhluuq kasta maqaamuu leeyahay wuu dhaafi karaan inta ma dhaafi karo riwaayada qaarkood waxay leeyihiin waa gubanaya hataa inta aan dhaafo ma dhaafi karo halkan ee awooddeedii iyo marka in ilaahay uuna doorto waxaa daliil u ah ummaddan anaga aan ka dhalanay oo muslimiinta ah oo alxamdulilah inaan dhahno oo diinteena aan ku dhegno oo ilaahay aan jeclaano nebi maxamed aan jeclaano calayh salaatu wasalaam halkanaa ka fahmaysaa nebiga calayh salatu wasalaam marka halkan marka intuusan bixin wuxuu dhahay ibraahim calayhi salaam hadiyadaan ku siinaya jannadu horta u tilmaamay nebiga jannadaa lasoo tusiyey aljannatu lma'wa jannadii markuu arkay quruxdeeda uu la yaabay ayaa nebi ibraahim wuxuu yidhi calayh salatu wasalaam jannadan turbadeeda ay qurux badan tahay macnaha biyaheeda ay macaan yihiin oo indhaha u roon wax walbana aad ka helayso ku siiyaa wardi haddaad ku celceliso maalintii oo jannada aad ku gelayso markaasuu yidhi haa i bar markaasuu yidhi waxaad tidhaahdaa subxaana allah walxamdu lilah wallaahu akbar walaa ilaaha ila allah walaa xawla walaa quwata ila billah waa 5 eray waay subxaana allah والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله intaasuu baray nabiga calayh salaam markuu soo noqonayo wuxuu la soo noqday hadiyad oo ah labada aayadood oo ugu dambaysa ee suurat albaqara aamana arasuul oo ducana wardina ah ducana ku jirto oo lagu wardiyo ayaa la soo siiyey aamana arasuul aayadda ku xigto laa yukallifu allahu nafsan labadaas aayadood waa hadiyad kale waxaa kaloo la soo siiyey salaadina oo loo soo dhiibay oo 50 salaadood ah wuu soo laabtay nebi muuse la kulmay hadiyadna lagu soo siiyey haa meeqa 50 salaadood wuxuu ummadaada ma kari karto laabo 10 laga soo dhimay markasta kor iyo hoos u socdo macnaha kor u aaday isagoo qaadanayo waanadii muuse calayhi salaatu wasalaam nebi muuse markuu la soo laabtay 40 wuxuu way badan tahay uu laabtay ilaa 10 xitaa waa badan tahay markaas ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka soo dhigay 5 nebi muuse wuxuu yidhi 5 xitaa ummadaada inay dukan doonaan mu umalaynaya waa ummad tabar daran shaydaan in nafar meesha way joogtaa wuxuu leeyahay kuma noqonaya ilaahay subxaanahu wa tacaala 5tii marka ilaahay wuxuu ka dhigay 50 midiiba 10 salaaday u dhigantahay markaas hadiyadaasana loo keenay ka waran ruux aad jeceshaa markuu hadiyad ku siiyo oo ku dhaw hadiyadaanan ku siiyey waxaan rabaa inaad isticmaasho ma dayaci lahayd maya anaga hadiyadaasi allah aan jecelnaana siiyey marka halkan waxaan ku baranaynaa kow ducadaasi subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar walaa ilaaha ila allah walaa xawla walaa quwata ila billah xadiis kalaa jira rasuulka calay salaam uu dhahayo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar waxay qorax u soo baxdo qorax waxay u soo baxdo waa adduunkoo dhan waxaa ka khayr badan ducadaas oo akhrisa haddaad walaa xawla walaa quwata ilaa billah aad ku darto nebi ibraahim wuxuu yidhi muftaax jannadiiya haysataa meeqa jeer 100 jeer haddaad kari karto ka ziyaadi aquulu qowlii hada wa astaqfir lii walakum wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu